السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرسنال صومالي فانس ميل كستو جوجتان يسي كستو نو مقليسان وأرسنال صومالي فانس بيت كلا سوعتان يوتيوب كيستو أنيقنا waxaan ahay admin wariye maxamed fantastic sida wada ogtihiin heshiiskii baarta Arsenal waa isku dhamaaday haddaba heshiiskan siduu u dhacay iyo siduu ka soo bilowday iyo halkuu ku dhamaaday baan rabaa inaan wax yar aan la socodsiiyo sida ogtihiin Thomas Partey iyo Hussein Awa xidigan liyo khadka dhawaciya Arsenal waxay bartilmaameed u ahaayeen xagaagan oo dhan Arsenal labada xidig way raadinaysay asbuuci hore aan soo dhaafnay ayay ahayd markii Arsenal iyo Hussein xidigan Maghribiyaanka ah sida jecelahay laakiin haysta dhalashada wadanka Faransiiska dusan ma xasuusto wadanka Afrika soo jeeda laakiin waxa haysta dhalashada wadanka Faransiiska Hussein Awa waa isku dhamaatay sheekadiisu oo Arsenal si cad bay ugu sheegtay kooxda Lyon iyo madaxweynahooda Aul Nicolas Ivan kala in Arsenal ay sarrabeen inay bixiso 60 milyan oo heshiis oo xidigan ku saabsan waana sababta keentay in Arsenal ay heshiiska Hussein Awa ay isaga harto xidiga khadka dhexe Lyon marka la fiiriyo waagi hore xagaagi marka Arsenal ay raadinayso Partey heshiiska Partey ayaa Arsenal u dhawaa uma dhawaan heshiiska xidiga la yiraahdo Hussein laakiin doonitaankii Arsenal ee xidigan reer Ghana caawa lana ku sugan caafimaadka maraya waa uu ka baxay meesha kadib markii Atletico Madrid ay Arsenal wax wada hadal kala galwada iyadoo sheegtay in 50 milyan ay halka u tuurto 50 milyan si xidiga qaata baa la yiraahdaa Arsenal iyo madaxweynahoodina Koryaanka ninka lacagta saako ah ma haysaasuu ku yahay lacagta waa uu jiday fiir Hussein anagu Partey lacag 50 milyan kala biximeyno heshiiskaasna waa u dhamaaday kadib Arsenal iyo Arteta waxay u soo leexdeen xidigan Awa leeyahay isagana Lyon madaxweyne kale imaan kale oo Arsenal ka daran ka haysta baa jooga wuxuu yahay 60 milyan ba halka ay tuurto Arsenal 60 milyan si qaata way diiday heshiiskii baa la galay 30 milyan baa la gudbiyay waa la diiday 38 milyan baa la gudbiyay waa la diiday Arsenal kadib way isku laabatay Lyon heshiiska ka baxday wixii tiraanaga Hussein uu joogay kooxda marka sidaas ay Hussein ka dhamaatay maanta oo Dylan ay ahayd maalinta ugu dambeysay suuqa kala iibsiga ahayna Arsenal iyo Atletico Madrid markii Arsenal ku mashquulsanayd heshiiska Hussein ayay Atletico Madrid ku qancisay Thomas Partey inuu Arsenal joogo markaas ayay ku qancisay in xidigan uu joogo laakiin Arsenal maanta Atletico Madrid wax heshiis iyo wax wada hadal lama gelin baba Arsenal si toos ah waxay ula xiriirtay La Liga una sheegtay inay diyaar u tahay kadib heshiis kasta baab kasta Arsenal baabka liyo waxay garaacday Atletico Madrid waa la furi waayay naga iibiya ma jirtoon waxa kuma jira xidig uu joogaya bas marka meeshan suuqa kala iibsiga waxa ka jira sharci ah release clause waxa la jira xidigan madaxiisa lagu dhigaysa lacagta inta lagu rabo ayaa bixinaysa xidigadaas kale Atletico Madrid way ka cadajiday Arsenal La Liga toos ula xiriirtay waxay ka lacagta waa tan meel qabta xidigaas oo baahanaa xidig waa sheegan Arsenal lacagta bixinayso ismay dream team tani waa kooxda riyada Atletico Madrid ifasaxa sidaas ayuu ku soo duulay xidigu sidaas ayuu ku yimi oo Thomas Partey ka fakarina waa xidig burburiyaasha ugu fiican Premier League waana ninka Arsenal ka maqnaa marka fikirkay ka hadlo sababtoo ah Arsenal burburiyo fiican waxa ugu dameeyay Gilberto Silva hadana khaldanayn waa ugu dameeyay Arsenal burburiyo fiican oo soo maray wixii kala siita Xhaka siita Alex Songa waa u fiicnaa laakiin aad uma fiicnayn يا كلا صومباي محمد النين الشيخ وين في عيا هبين وكفكتا سيدا توماس باتو جابرييل لعب دقي halkaas oo dhamaatay Arsenal heshiis fiican oo boqol aad iyo aad u fiican ayuu u yahay Thomas Partey marka ninkaas waa Arsenal oobay oo Arsenal ayuu hadda ka tirsan yahay dhaga kalena warar kale oo suuqa isagu waxa uu sheegayaa in Arsenal ay amaah ku doonayso xidiga khadka dhexe kooxda Inter horena ugu ciyaari jiray kooxda Tottenham xidiga reer Denmark Christian Eriksen lama xaqiijin laakiin ila ayaa sheegay Arsenal ay amaah ku rabto Christian Eriksen oo ay doonayso inay amaah ku qaadato xidigu post fiican kama haysto Antonio Conte Inter tan iyo markii uu ka tagay Tottenham dhanka kale wararkana suuqana waxa ugu waaweyn oo kale sida hore u maqasheen sida hore ula socoteena xidigeeni yara dhibka badnaa Martin Gundogan amaah ugu biiray kooxda reer Berlin la yiraahdo caasimada Berlin ka dhisan dalka Germany ayuu amaah ugu biiray oo Arsenal way xaqiijisay Berlin way xaqiijisay
سعيد كولاسينيتش iyo xidiga Socrates isaguna caawa ay dida Arsenal PSG na ma kusiiso Arsenal lacag bay rabtaa laba xiddi ku rabtaa suuqu wali saacada ka dhiman insha Allah anaguna update baan ka ahaan doonaa page kana update baan ka ahaan doonaa YouTube kana caawa update baan ka ahaan doonaa insha Allah reer Arsenal idinku ismuujiya subscribe ka سأوفو يا إن شاء الله بيتك لايك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.